iyadoo ay jirto habacsanaan xagga nadaafadda ah oo shirkadaha goobaha caafimaad hoteelada iyo weliba guryaha aysan heli karin shaqaale nadaafadeed oo tababaran ayay shirkadda Deegaan Dhowr hirgelisay nidaam ay bulshadu ka heli karaan adeeg nadaafadeed oo dhameystiran. Deegaan Dhowr inta aan ka dharagsanayn waxay shaqaale nadaafadeed oo tababaran siisaa cid kasta oo u baahan in loo adeego, hadday noqoto guri, hotel, goob caafimaad iyo weliba meel walba oo aad ku fikiri karto. waxay tababar u siisaa shirkadaha iyagu leh shaqaale u gaar ah si ay shaqaalahaasi u noqdaan kuwa xirfadaysan. Deegaan Dhowr waxay leedahay adeeg cajiib ah oo lagu dhaqayo guryaha cusub isla markaana lagu nadiifinayo agabka yaala sida kuraasta, fadhiyada, daahyada iyagoo goobtooda yaala hadday noqoto goobtaasi goob shaqo, meel la siino ama xitaa guri dhexdiisa. Deegaan Dhowr waxay dalka keentaa agabka nadaafadeed ee ugu tayaysan iyadoo u qaybisa dhammaan xarumaha ganacsi si ay bulshadu si isku mid ah u gaarto. waxay sidoo kale hirgelisay nidaamka beerista dhirta iyo xanaaneynteeda. Deegaan Dhowr waxay ka saacidaa bulshada la dagaalanka cayayaanka maadaama wadankeenu uu aad ugu badan yahay cudurrada ay keenaan cayayaanka sida kaneecada oo sababta cudurka malaariyada. waxay maqaayadaha, hoteelada iyo weliba goobaha lagu cunteeyo siisaa shaqaale aqoon u leh cunto karinta iyo weytarnimada. iyadoo adeegsanaysa booyado aad u waaweyn waxay ka qayb qaadataa Deegaan Dhowr qaadista bulaacadaha xitaa waxaa jira adeeg u gaar ah cilad bixinta iyo weliba dayactirka musqulaha. shaqaalaha Deegaan Dhowr waxay ka shaqeeyaan in ka badan 160 xarumood oo ku yaala magaalada Muqdisho kuwa oo isugu jira isbitaallo, hoteello, iskuulo, apartments, jaamacado, maqaayado iyo weliba moolasha ugu waaweyn ee dalka. Deegaan Dhowr hadafkeedu waa in dalkeenu uu xag nadaafadda kala mid noqdo wadamada horumaray. haddaba ku soo dhawow Deegaan Dhowr wixii macluumaad dheeri ah nambarada shashada kaaga muuqda. mahadsanid.